نين أو كل الناس كلها به ولا عرف كان معك قرر أنت لمبرك محل بدل محل تري this is not how politics works سياسة ما شقيس maalinta la gaaro faahfaahin maalintaas basti inta aad gaari karto laakiin inta hadda la joogo ka doodha gudoomiyaha qabta meesha laga tiro sababta loo tiray leeyahay garada gudoomiyaha gobolka wuxuu yiri waxaan kafaala qaad كان هذا جدًا وعبد الرحمن عبد الشكور أو وضع تقانن حلقي بدبادة قرن وحوها رجع وأفكار ديراي تيم كي بدبادة قرن هو جاميناي ما أنت قلها برلمانك أو تاجن تستور كقبي قرال كائن ودمايرنا أيون قد بدر كورتشيدي دولة كستو أتما دوا متك غايلية دولة دي هور تيم أسوق هو جاميناي أو بدبادة قرن لبحي يا كوكا سناي ما أنت قلها برلمانك أو تستور كقبي قرال كهرباء إن دمايستران أيون قد بد كورتشيدي qodobada uu ku andacoonaya marka la fiiriyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur qodobo soo jiidasho la waay wax wada run ka hadlaya waxaan rabaa markii inaan isweydiino Cabdiraxmaan Cabdishakuur dawlad kasto timaado inuu macaarado ama hadalla taagtaaga ku yiraahdo ma maslaxadiisa uu ka dhaxarka ma maslaxada ummadda Soomaaliyeed uu ka arka laba qayb baan u kala qaadaya in dawlad federaal oo dastuur dhameystiran leh oo wadanka ay ku hagto in la helo waa wax wanaagsan laakiin Cabdiraxmaan Cabdishakuur qodobada uu ka hadlaa waxay tahay waqtigii dastuurka laga hadli lahay maanta lama joogo dalka dhibaato aad u tiro badan buu ku jiraa argagixisadii baa lala dagaalayaa maamul goboleedyada dastuurka diidan Itoobiya ayaana soo hujunto rabtay in dhulka naga qaar qaadato waxaasoo dhan intaan ka soo tilaabsano inaynu dastuurka maanta furno waxaa ka wanaagsan inaan daadadka nagu furan aan marka hore iska moosno kadibna aan dastuurka u soo jeesano sidaas marka loo fiiriyo qaabka uu hadlayo waa positive waa wax wanaagsan oo dadka intii lagu mashquulin lahaa dastuurka aynu ku mashquulna dalkanaga sidaan Itoobiya uga ceshan lahayn nimanka shayaadiintaasaan iskaga saari lahayn ciidamada madowga Afrika ee baxaya sidaan u dhiirigelin u hantaraa turaan ooga bixi dhiilayn waxaasoo dhan inaan ka soo shaqeyno oo maamul goboleedyada iyagoo raali ka ah oo siyaasiyiintu raali ka yihiin dastuurka la furo qodobkaas ayuu Cabdiraxmaan Cabdishakuur doonaya kaloo Cabdiraxmaan Cabdishakuur ka xanaaqsan yahay dastuurka lama dhameystiraye waxba laga bedelayaa wax aad u tiro badan ayaa dastuurka laga bedelayaa qodobada laga bedelayo waxa kamid ah in dalku uu yeesho madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen oo halka laga baxsho magaca la yiraahdo ra'iisul wasaare hadii marka maanta dastuurka baarlamaanku soo dhameystiraan Puntland iyo Jubbaland iyo Galmudug iyo Hiirshabeelle iyo waxoo dhan kama shaqeynayo siyaasiyiintuna waa diidi doonaan xasan sheekh maxamuud oo dawladda madaxweyne u ah dawladdii asaga ka horreysay wuxuu kula andacoonayay annagu siyaasiyiin wadanka mu kulahaanahay masiirka wadanka waa in annaga nagala hadlo waana sababtay hotel jazeera shirarka ugu qabsanayeen waana sababtay beledweyne ugu dhoofayeen iyadoo dawladda federaalka aad joogto waa sababtay miriqda dawladda xilliga jirta uga badiyeen maantana asagii oo madaxweynaha ma ogola inuu dhageysto qof siyaasi warkii ma ogola maamul goboleed inuu dhageysto warkiis macaala alle maba ogolaba inay shirar qabsadaan siyaasiyiintu qof siyaasi oo miriq la maaragtay sidii dawladii hore miriqda looga badiyay waar dawladii hore way ka waaleen xitaa waxa dhacday Sheekh Shariif iyo asagu inay diyaarad magaalada Muqdisho inta ka ingeertaan ay beledweyne u ingeertaan ayagu maxay yihiin marka ma madaxweyne ma ra'iisul wasaare maxaa ka galay ayaga dalka xilliga madax baa ka jirtay madaxweyne uu lahay ra'iisul wasaare uu lahay wasiiro uu lahay xildhibaano uu lahay ayaga ayaa dalka mas'uul ka ahaa inaad marka miriqda ka badisid oo hadda meel ka soo gashid oo hotel jazeera wax ku qabsatid oo beledweyne u dhooftid oo hadda wax ka sheekaysid oo meeshan ciidamo la martid oo xaafad ciidamo la gashid miriqda noocaas ay dawladdu hororta ku hayeen hadda maanta xasan sheekh maxamuud asagiya madaxweynaha hal qof oo siyaasi oo miriq lama jiro dadkii oo dhan qoorsagaaro ku wada hayo wuxuu taagan yahay hadal kartiin hadalkiina dhageysan maayo wixii anigu aan raba ayaa soconaya xasan sheekh maxamuud markuu doorashada soo galayay wuxuu dhahayay Soomaali heshiisa dunidana heshiis la ah Soomaali heshiisa lama haayo Soomaali dunu heshiis la ahna lama haayo cid ku miriqle oo dhibayso oo macaaradaysan ma jirto sidii kale ma jiraan siyaasiyiin intay badbaado qaran la baxeen oo hotel kireysteen maalin walba war ka soo saaraya idaacad firiya ma jirto macaada alle maanta magaalada Muqdisho ma jira siyaasi idaacad ka hadli kara xitaa siyaasiga la arka dawladda inuu ka fikrad duwan yahay warkiisa lama qaadayaba makarafoonada idaacadu ka dansanayaan wasiir al-Cadaala meesha loo fariisiyay wixii asagoo oo rabo ayaa soconaya Sheekh Shariif ayuu ahay ninkii asagoo golaha baarlamaanka ka hor qodbaynaya makarafoonka laga dansaday kaameradana laga dansaday warkiisina cid aysan qaadin waxaad kala ogaataan Cabdiraxmaan Cabdishakuur dawladdu macaarado
dadkoo dhan baa mucaarada dowladdan ka horreeyay way weerartay wuu mucaaraday idaacadahu ka qayliyey dadkii oo dhan baa mucaaraday waxaana idin tusayaa bilahan soo socda ummadda Soomaaliyeed oo dhan oo Xasan Sheekh Maxamuud ku kacsan hadiiba Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo kacay dadkuna waa kacay ninkaan waa nin aad u af Soomaali badan wuxuu awoodaa dadka inta soo hor istaagay inuu ka dhaadhiciyo dowladdan inay xun tahay wadadkuna waa qaadanayaan xasan marka inta daada isku furleed Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Sheekh Shariif iyo raggaas oo kale la heshiiyay maantay dowladdanada mucaarad ma baahna inaynu taageernaa loo baahan yahay laakiin dowladdu qaabka ay wax u wado ayada ayaa mucaarad ka raadsanay ugu dambeyntii waxaan ku soo gabagabeynayaa kursiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ku fadhiya dadka iska leh hadii Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo mucaarad noqdo dhammaantood mucaarad bay noqdaan dowladdaasna waa ku kacaan waa nin tolkiisa sharaf iyo karaamo ku dhaxle oo tolku jeceliin dawladdu waxaan dhigay wara dadka isku soo jeedinina mucaarad nagu kicinina dawlad loo midaysan yaan u baahanay dastuurkan iyo waxaan ururta joojiya marka hore maamul goboleed soo mideeya dawladdu wadanka ha qabato cashuurta ha la mideeyo kadib dastuurka loo dhan yahay ha la sameeyo aad iyo aad baad mahadsantiin